السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له إسكا ورمسيتين ما في عنتين ما شاء الله تبارك الله. وان إذن سلامة مغرب إيه مخشب ماشا أدنك كجوكتان با وحان إذنكو سلام مسلم كدان كدحيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له السلام كدان با وقت إذن تانا وإذنكو سلامي هبين هدايتا هبين وناكسن صبح ظهر عصر ضدوب الوقت يتهاب وقت وناكسن الله كاغديغو آمين يا ربي. أنا sidoo kale waqti wanaagsan Allah iga dhigo. Walaalay aad iyo aad idin salaama waxaan idin leeyahay salaan ka dambo waxaan noo wada aan ana maarad ku faraxsanahay in oo maaragtay ay laba qof walaalo ah oo xoogaa isdagaalsanay xoogaa qulub soo kala dhex gashay amba shaydaan oo soo kala dhex galay in ay heshiiyeen waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaa in ay la soo dhaweysiinaan rabaa insha Allah bidnillah karim sababtoo dadka meesha ay waxa xun ay ka buunbuumiyaan waxa ka wanaagsan waxa wanaagsan ila buunbuuniyo waxa wanaagsan la wadwado ma sha Allah tabarakallah si kala hada uma wadwado ani wanaag uma wadwada wanaagaas oo in ay heshiiyeen labada wiilkay gabadhan baabajay iyo wiilo in ay heshiiyeen xoogaa waxay xurguf soo kala dhex gashay isfahan waay isfahan waygaas oo ahay dad ayaga walaalo ahaayeen ayaga ehel isku dharar wadaag wada shaqeeyo meel wada joogo ayay ahaayeen oo isla wada shaqeysto marka xoogaa xurgufa soo dhex martay ismari waay amba isfahan waay amal ayaa soo kala dhex maray soo kala dhex galay soori igaraal naqda ayada oo qof walba qofta kale ay u maleyso inayna ka xanaaq waxan amba ay u maleyso inuu maartay qofkan si kale ay maaragtay adu isfahan waygaas ayaa soo kala dhex galay hadana way heshiiyeen ma sha Allah tabarakallah baabajiyada waa idin soo qaata ayaan hore asagoo raadinay walaashiis oo dhahayo wiil soo noqo wiil inta aad wiil meel kasto ka raadi wiil wax hartan ku suubina walaal macaani soo noqo qaladka aan ka galo waa maaragtay waan maaragtay ka xaal marina waxa arto ku sameeyna asoo dhahay idin soo galiyay hadana ma sha Allah ayada oo dhahayso oo waxaan idin wada dhahayso waan heshiinay cafiya lay dhahay dad walaalaha waxay dhaheen walaalka cafi ay dhaheen sida darteed ana waan cafi walaalkay marka yaa ka fiican qof cafiyo wax ka wanaagsan malahan cafi iyo masaamax haday dhahday alxamdulillah anaga maaragtay intaas anagu filan qalbigaada ka cafisay afka ka cafisay waa nagu filan ma sha Allah tabarakallah marka waxaan leenahay anagana ku buush gareynayna ku dhiirigelinayna inay wax wanaagsan sameysay sideedaba waxa la yiri qofka nina hadalka qofka markuu dhaho nina si u qaaday nina si u leh saas oo macnaha in qofka oo mar waxda wax ku la kaftamo oo si kala qaldan oo shaydaan ka dhigi karo laakiin oo nasaas ahayn marka maxaa la rabaa markaad wax ka shakiso oo tiraahdo wallahi waxas qofkaas muxuu saa ii dhahay inaad xasuusato maaragtay xadiiska ay nabigeena calaysalaatu wasalaam oo yiri qofku markuu dambi ka galo ma wax lagaaga sheego aan soo riiraal naqda qof marka wax lagaaga sheego oo lagu yiraahdo hebla wax ka sameysay dahab wax ka sameysay waa inaad tiraahdid 70 jeer u cudur daartid oo tiraahdid wallahi dahab waxa sigama sameynayso lagama kama suurtoodo adiga oo ismogeysina oo shaydaanka dabka oo shiday biyo ku shubayo ayaad waxaad leedahay waxa igama sameyn kamana suurta galaan ana ugu jeceshay waa walaashay maaragtay waxa ima dhihi karto walaalay warkaas wax ka raadiye saliye raadi toona ma leh wax ka jira ma leh naga xir warkaas ha idihin ma jirtay wax ku sheegan been ku soo sheegeen qofka ku wada warka inta ka badan ma si wada kariyo barta ku joojina shaydaanka uu niyad jaba ayadii ilaa bin aadam waxa jiro oo shaydaanku soo dhex galay ilaa shaydaanku iskama soo socdo lama arkay dadka ku dhex jira waayo waxa leeyahay naf lama abuurin ilaa shaydaan la abuuro marka dadka dhigiisa shaydaanku ku jira marka tiraado iga jooji warkan qofka kulma si wadwadi karo kuma nuuri karo kuma qurqurxin karo saas darteed abayda waxaan leenahay ma sha Allah hadeertaana dhinaca wanaaga ka qaado sida aad hadaba uga qaadatay oo walaalka u cafisay iscafiya xala dhalay wixii dhacay ka noqo wixii hore u dhacay xala dhalay ka noqo
maasha allah tabaarakallaah saa haddaba uga naqatood u sheegto tiri waan cafiyey walaalaha cafiye dhaheen walaalaha cafiye ku dhaheen soo maa waad cafisa soo maa ilaahay qofka qof cafiye u jecel yahay wax naga dembi badan male bini aadanaanaha 24 saac aan dad dulminaynaa xantamaynaa xastaynaa marka ilaahay macbuudka ee dembiyadaas inuu naga dhaafo la rabo ayaaba naga horeeyo ayaaba maaragtay istighfirullah raali noqda ayaa maaragtay joogo marka maadaama ilaahaygi macbuudka uu joogo rabto inuu dembigaas oo dhan tirad badan dhan oo naga tirtiro waxaad samaysaa hadduu alla idmo waxaad samaysaa hadduu alla yiraahdo muxuu ahaayey iska cafi adigana sad haddaba u cafiday ha kaa naqato kale iyo laab biidmillaah karim waxyar warkeeda ila dhegeysta walaashan kilibkeeda ay soo duubtay waxyar ila dhegeysta insha allah iskuma dheereynayo waxyar ila dhegeysta maadaama uu baabajiyey uu isaga iska dhigay qof dambi la-aan ah iska dhigay mataqaana qof wanaagsan uu siinayo uu dhahay oohin beena waxba ka jirin dad kale ay u jeedaan uu dhahay wiilo hogaamaan wiilo weji oo ay soo laabo wiilo wuxuu keena maanta hee wuxuu gaaro uu dhahdo wiilo mataqaana waa wiilo maxaa arkay baabajiyey oo qoftuu hebeluu ka badbaadiyey waxsaas ah qofkii soo diray asxaabta horta alxamdulilah hadeertaan waa roonahay walahi dadkiisu duceyn aada umadsan tihiin ducadeena allah iyo aqbalo oo weli aqbalay sida hore waa ka roonahay alxamdulilah caafimaadka ilaah ahaayo qofka bini aadamka daciifka weya wuxuu ogaana maalinta xanuunsan oo seexdo dad iga daranaa jiraan sidan si ka daran u xanuunsan muslimiinta meel kastay joogtaan inta xanuunsan maxaa leh allah caafiyo idinkana loo soo duceeyey insha allah intii dhiman waa ka caafimaadi doona hadduu ilaahay yiraahdo maanta ku 5 maalina sariir saaranaa xanuunsanahay xanuun zaa'idna ima haayo ani waa hadli karaa waq kale iga soo boodaliyo wixii maahane xanuun aada u xirmiya haayo asxaabteeda horta waxaa rabaa inaa idin sheego waa idinka maarmi waaye qasabna waxaa igu noqotaynaa mar kale anin asugu aan wax iga soo duuwaayo iga soo waxeeyo maadaama dad badan ay fariimo ii soo direen waxaas dhahay mataqaana alle mataqaana qanaxi dad badan ay dhaariyeen oo ilaahay ugu dhaariyey wiiloo iska cafi wiilkaas walaalkaa waaye wax walbuu kuu keenay mataqaana iska cafi isaga sheeko koo ii keeno wiilaa abduu wadaa u malaynaa horta anaaba suuliga gaari karine maxaa dad abduu taawo suuliga
yaabsaan maxay tahay haddana waxaa youtube-ka usoo fadhiistay halkaa usoo fadhiistay intaas noogu ekata gabadha abaayadin hadalkeeda maasha allah marka waxay leedahay dada intaa xumaantiisa ii sheegi jira laakiin weligay uma dhegaysanin xabiibta aada u mahadsantahay haddaad u dhegaysanin ood saas maaragtay iskaga cafin jirtay amba iskaga dhaafi jirtay waa run dadka way warbadan yihiin waana shaydaana ayaa dadka dhigooda ku jiro iska iloow waxa ay ku dhahaan waasaan hadda kuu sheegay sidaa ku socoto ku soco waa si wanaagsan oo farxad leh walaalnimo ku dheehan tahay wiilku waa walaalka wuxuu rabaa qalbigiisa anaga qalbi ma daalacan karno kuma dhex jirno afkiisa laakiin maasha allah tabaarakallah walaalnimo wiil rabo waaye iyo wada shaqayntiini oona ka maarmi karin asigana maalina uu sheegay kalma maarintin waliya diirkeed laba qof walaalaha tihiin oo ummadda bini'aadanka dhan aan kala maarmi karin siiba dadka walaalaha ee soomaalida kalama maarmi karaan saas darteeda iska cafi iska iloow wixii yaroo uqdada kusoo galay xabiibta haddana wuxuu ku yiri saan shala aada u baahneed ayaan ku dhaqana iyo si ka daran iyo waxa lagu xaarabto ayaan samaynayaa ayuu ku yiri insha allah bismillaah kariim marka waxaan leeyahay dhexdiina khayr allah dhigo walaalaatiin alla walaaloobo alla iscaawiyo hala heshiiyo ayaan idin leeyahay anigana oon maaragtay inta usoo galay inaan bogaadiyo adinka heshiiskiina waayo farkaligeed fool ma dhaqdo qofkani wax ma naqan karo laba qof hadaatiin isku maaragtay isku fiidiyogooda youtube-kooda isku samaysanayo isla sheekaysanayo isu shactiraynayo heeraa gaaraysin marka waxaan leeyahay heerka aad asiga gaarsiisay adina ha ku gaarsiiyo oo xaqaada waa inuu maaragtay aadna ku gaarsiiyo diyaar u yahay haddana waxaan leeyahay marka wadajir sidiina kooda wata labadiina dhinacba isdaandahiya saas shalab isku eedeen waana iyo taladaasa idiin soo jeedinaa biidnillaah kariim boginan burcada la soo mariya adinka intim walaala oo muslimiina amba lamaanaha ahaada amba dad meel ka wada shaqeeya ahaad amba dad asxaabaha ahaadaan intii qulub dhexdooda gashay oo dhan dhexdooda muxuu ahay naxariis iyo wanaag iyo sharaf allah dhex dhigo insha allah biidnillaah kariim intaasaan idinku darsalahay asxaabay adinkana soo duceeya dadka intii oo dhiban in ilaahay dhib ka qaado wixii colaad ka dhexaysan ilaahay wanaag iyo sharaf ugu bedelo iyo iscafis insha allah bismillaah kariim intaas idin sheegi lahaa idin la soo hor fariistay inaan gabadha wiilkan aan ku faraxsanahay heshiiskooda insha allah adinkana waxaan leeyahay haddaad igu cusubtaa walaal macaan subscribe iyo sar like comment haddaa hore iila joogtana maasha allah shukran jazaaka allah khayr iisii sheergaray like ii soo saar comment qurux badan ku farxo kasoo bixi insha allah bismillaah kariim waxa maaragtay taliyo tusaalaana ila soo wadaag oo awoodo hadduu alla idin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu